تفضل جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، sida walaalku uu tilmaamay, dariska lagu talagalay maanta inaan halkan ka akhriyo waa xidhiidhka ka dhaxeeya adduunka iyo aakhiro. calaaqada ama xidhiidhka uu adduunku la leeyahay aakhiro, inaan isku dayo inaan markaasi soo bandhigo bal aragtida islaamiga ah ama dadkii muslimiintii hore siday u arkayeen adduunka oo ay aakhiro ula xidhiidhinayeen. basharku inta badan laba daraf bay u kala weecdaan, islaamku se wuu u dhaxeeyaa. qolo nolosha adduun oo qudha aragta, dabeetana aakhiro hilmaamtay, noloshuna inuu adduunkun ku gabagaba tahay qaatay oo doortay amase iithaar ku sameeyey nolosha adduun. qolo nolosha aakhiro oo qudha aragta, adduunkanna aan wax weynba u arag, laakiin aakhiro sidii ay ugu shaqaysan lahaayeen oo keliya isku dayey. se u arkay adduunku inuu yahay madyac lilwaqt oo aan markaa isaga gacanta loo fidin. iyo aragtida islaamku aan u arko inay dhex ka tahay oo ah camal adduun iyo mid aakhiro wax la kala yidhaahdaa ma jira ee qofka muslimkaahi wuxuu dunida ku sameeyo ayaa aakhiro lagu abaalmariyaa. idan amaama allahi mas-uul buu ka yahay adduunkan inuu si fiican uga shaqeeyo. wixii uu kaga shaqeeyo xaaraan iyo xalaalbana, ama cibaado iyo shirki, ama wuxuu kasta uu qabto aakhiro inuu jawaabteeda helayo. ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi اlcaalamiina laa shariika lah wabidalika umirt wa ana awalu اlmuslimiin. haddaan markaa mawduuca isku dayo bal inaan gudageli karo, qodobo dhowraan u kala qaadi. koo waxaynu tilmaamaynaa in ilaahay subxaanaه wa tacaala basharka u doortay inuu khaliifat ullahi fi اlardi noqdo. waid qaala rabuka lilmalaa'ika inii jaacilun fi اlardi khaliifa. ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa uu malaa'igta u sheegay inii jaacil, ay inii khaaliq aw inii musayir, inuu ka dunida yeeli doono bashar ama bani aadam oo khaliif ka ah, khaliifat ullahi fii ardi, aw yakhluf can qowmin aakhariin, sida culamada qaar kaleba tilmaamaan. khilaafadaasi waxaa muftaax looga dhigay masalat alcilm, oo markii ay malaa'igtu sheegtay reer nebi aadamkani inay fasaad badan iyo wax badan samayn doonaan, wixii malaa'igta lagu xujeeyey ee alle subxaanaه wa tacaala uu ku xujeeyey ee miisada aadam siiyey waa cilmi. wacallama aadama alasmaa'a kullaha baa ilaha yidhi. nebi aadam waxaa alla baray subxaanaه wa tacaala magac dhammaantii. masalat alcilm oo ah bay culammadu yidhaahdaan miftaaxi alkhilaafa. waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka inugu faraya marka in layna faray dhulkaasi isaga ah inaynu camiro. huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha. huwa ansha'akum min alard, alle subxaanaه wa tacaala waa ka dhulka idinka abuuray baa la yidhi. wastacmarakum fiiha ay jacalakum cumaaraha wa sukaanaha, amase wastacmarakum fiiha sida zayd ibnu aslam uu tilmaamayo, amarakum bicimaarati ma taxtaajuuna ilayhi min binaa'in wamasaakin waxufara waanhaar wagarsi ashjaara wagayri dalik. alla waa ka idin amraya
ama idin faraya inaad dhulka camirtaan ama se waa ka dhulka idinku camiray qofka muslimkaa ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaa layna farayaa inaynu ilaahay keligii caabudno lakin min hadihi اlcibaada macna alcibaada fi اlislaam waa ballaadhan yihi cibaadadu islaamka waxa weeyaan wax adduunkanna islaaxiya aakhirana islaaxiya wax adduunkan wanaajiya midhaheeda ugu badanna aakhiro la helo waxaa layna faray markaa wاbtagi fima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk walaa tabgi اlfasaada fi اlard in allaha laa yuxibu اlmufsidiin waxa alla uu idin siiyo ee cilmiya ee aqoona ee kartiya aakhiro ku raadceeya baa la yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya adduunka dheefta lagugu tala galayna ha ka tegin baa lagu yidhi wa axsin kamaa axsana allahu ilayk u wanaagsanow ama u subanow ama u dhaqan fiicnow sida alle subxaanaه wa tacaala uu ku wanaajiyey walaa tabgi اlfasaada fi اlard in allaha laa yuxibu اlmufsidiin nusuus qur'aan oo badan baan akhriyey kadibna mar quraan iswada dultaagi ilaahay wuxuu ina amrayaa subxaanaه wa tacaala huwa aladii jacala lakum اlarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqih wa ilayhi nushuur waxaa alla inoogu manno sheeganaya subxaanaه wa tacaala inuu dhulka inooga yeelay daluul mid hayina mid la layliyey inoo layliyan mid musakhar ah laynoo taskhiiriyey ama se laynoo fudaydiyey inaynu ka faa'iidaysan karno waxa nimco kor saaran oo dhan ee famshuu fii manaakibiha baa la yidhi socda hareeraheeda iyo dacalladeeda oo wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur ilaahay arsaaqdiisa cuna xagga allah laydin soo saarayaayo ilahay wuxuu leeyay faإida qudiyat الصalaaةu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah wadkuruu اllaha kahiira lacalakum tuflixuun salaadu hadday dhammaato baa ilaahay yidhi markaa cibaadaysataan ee salaada tukataan faاntashiruu fi اlard dhulka ku faafa baa la yidhi subxaanaه wa tacaala wاbtaguu min fadli اllah ilaahay dheeraadkiisa iyo nimcadiisa iyo naxariistiisana dalba oo wadkuruu llaha kahiira lacalakum tuflixuun ilaahay subxaanaه wa tacaala caabuda in badan waxaa mudantiin inay liibaantaane dhulka waxaa la rabaa inaynu camiro nolosha inaynu horu marino ummadda muslimkaa ama bani aadamku inuu noqdo wax nolosha adduunyo sidii alle uu faray subxaanaه wa tacaala ula dhaqmaya adduunku qofka muslimkaa agtiisa waa طariiqa loo maro aakhiro wax kasta oo qofka muslimkii uu qabto intuu adduunka joogana cibaado wuu ka dhigi karaa xoogsigaad xoogsanaysaa cibaado noqonaya waxaad cunaysaa cibaado noqon kara hurdadaad seexanaysaa cibaado noqon karta salaadaad tukanaysaa cibaado noqon karta wax kastoo aad qabanaysaa cibaado noqon kara waa haddii qasdigaagu uu saxan yahay niyadaaduna ay toosan tahay jidkii rabbi uu kuu jeexayna aada hayso idan camalku nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka imaam الbukhaari fi اladab اlmufrad uu ku soo arooriyey sheekh ilalbanina uu صaxiixa ku tilmaamayo wuxuu nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam bal xadiiskan u fiirsada in qaamat الsaaca wa fii yadi axadikum fasiila fain istaطaaca an laa taquuma xataa yagrisaha faliyugrisha nebi maxamed baa wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam in qaamat الsaaca haddii qiyaamuhu dhaco yacni haddii uu amaanadaadkii qiyaamuhu uu muuqdaan oo qiyaamihii uu dhacayo wa fii yaddi axadikum fasiila
midkiina gacanta uu ku hayo fasiila fasiilada waxaa la yidhahdaa geed abqaalka timirta geedkeeda yar ee la abqaalayo